Bismillahi Rahmaani Rahiim. Haddii la qadaro waxaan wadaagi doonaa dhowr erey oo afkeena ka mid ah ujeedkooda. Ereyga koowaad waa ballaysin. Ballaysinku waa shay hor leh oo la bilaabayo, shay aan hore u jiri jirin oo hadda la doonayo in gacanta laga qabto. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ballaysini birka adag. Macnaheedu hawl imika loo dhaqaaqayaa way adagta. Dhanka kale waxaa ku hoos lifaaqan nuxurka mahmaahda qofka wax hor leh oo cusub qabtaa inuu yahay qof tilmaaman oo hal adayg iyo karti ku sheegan. Ereyga labaad ee aynu wadaagaynaa waa riir. Riir inta badan waxaa loo adeegsadaa shayga cayilan naaxsan ee shilis, ramad dhalay, lo' wada riira iyo raasamaal adhiya. Riir waxa cuddoon ee xooggan baa la yidhaahdaa. Ereyga saddexaad ee aynu wadaagaynaa waa rigrig. Rigrigitaanku waxaa inta badan loo adeegsadaa marka weelka tolmihiisa lagu celcelinayo sida haanta, girgirkeeda, masafta oo kale. Shayga tolmihiisa lagu celceliyo ee la adkeeyo ayaa rigrig la yidhaahdaa. Qalbigan rigrige bay ruuxaysaa mahmaahdu iyo haddii ay runkaa tahay kaa reebi maaye taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa. Rigrig. Ereyga afaraad waa gambaraash. Gambaraash waa socod tartiib ah oo qofku aanu degdegahaynin. Socod luuda, gaabin ah, gaarin ah oo qofku aanu toogadii hore u gaarhaynin. Gambaraashka sii luud. Show halgalgalin fadhido oo ka sokaysa geedkii ayuu guudka kaga dhacay. Aad baad u mahadsantihiin daawashadiina.